Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan idin leenahay aniga iyo channelka ku caawinta yatiimanka sabaax alkheer meel walba aad joogtaan. yaa jamhuurtana daawanaysa asxaabta nagu xiran maasha allah aad ayaa u mahadsantiin sida quruxda badan oo noo daawanaysiin maasha allah. subaxan waxaan idin haynaa maasha allah tabaarakallah. yaa jamaaca maragtiin inoo dhibaato walba ku jirtaan ilaahay naga bixiyo, cariiri walba ku jirtaan ilaahay naga bixiyo, dhinac walba hadday noqoto dhinac walba adduunyadan qofka jooga wax walba hadduu haysto ama wax walba hadduu yahay dhibaatooyin waa haysataa. ha ugu yaraato tan ugu yar haddaan kasoo qabsado hataa murugada, xasiina, walwalka, khalaqa, nabad ku noolaansho la-aanta. yacni qofka hadduu iska ladan yahay hataa nabad iyo raaxo nafsiyan ma dareemayo. walwal laysku noolyahay maku noolaanayo sacaado iyo raaxo iyo farxad iyo qalbigiisa degan asoo nabad ku jiifanayo ama nabad kusoo kacayo. waa yaryahay dadka noocyaashaas oo kale in la helo. raaxadaas oo kale goormee la dareemaa raaxadaas waxaan ka wadaa qofka bini aadamka oo cabsi aan dareemeynin, walwal aan dareemeynin, muruga aan dareemeynin, xasiin aan dareemeynin, noloshiisa kusoo kacayo subaxii yacni farxad asigoo waxba dareemeynin alxamdulillaah ku jiifanayo nabad asigoo waxba dareemeynin, waxba ka maqnaynin. raaxadaas goormee la dareemaa bacda mashwaar haadaa tawiil. mashwaarkaasoo oo maanta nii sheegay hadda nii sheegi doono insha allah biidnillaahi ilaahay hanagu darsimo wallaahu aclam. marka mashwaarkaas wuxuu yahay walaalayaalo saan hore u sheegay waa ku celcelinaa waxyaabo aniga nafsadeyda aan ka istafiiday, waxyaabo ani nafsadeyda aan arkay macaanteeda, waxyaabo ani nafsadeyda aan arkay raaxadeeda. marka waxaa la dhahay waxyaabaha adiga oo ka istafiida oo aa aragtay oo ku dhex jirto ood ku dhaqmoosid waxaa weligaa hore aad u arki jirin oo had aad u aragtay. faa'iidooyinkaas meesha aad ka keentay ama meesha aad ka gaartay inaa u sheergarayso walaalahaaga. wax yar faa'iido hataa aad hesho ama aad dareento mala qarsado mala cishto waa la sheegaa liwajhillaah. sida channelkanba uu ugu shaqeeyo liwajhillaah. channelkan ku caawinta yatiimanka wuxuu u shaqeeyaa liwajhillaah ayuu u shaqeeyaa. wuxuu ugu shaqeeyaa yatiimanka u shaqeeyaa. wuxuu u shaqeeyaa dadka waaweynka da'da musaniga ah oo caawinaad rabaan musaacadaad rabaan wax caawinaya aan lahaynin. wuxuu u shaqeeyaa dadka dhibanayaasha u shaqeeyaa. liwajhillaah ayaan ugu shaqeynaa. waxaan aan sameynin dhan liwajhillaah. sida aan u caawino intaas dad aan sheegay ilaahay hadduu nagu darsamo nagu garab galo bacdigiina idinkaa laga rabaa inaa channelkan idinkana sidaas oo kale noo istaagtaan nagu caawisaan. ma dalbanoona wax weyn anaga waxaan iga dalbanoynaa noo sheergareeya. haddaa qof channel ku xiran aad tahay like-tana noo saara. haddaa qof oo nagu cusub aad tahayna sheerta subscribe-ta inaad noo saarto. intaas waay dalabkeena wax kale ma ah. maanta haddaan baka soo qaada lahayn oo ilbaabku istaagi lahayn waa ku ridi lahayn. haddaan dukaanka kuugu tegi lahayn waa ku ridi lahayn. haddaan masjidka imaan lahayn bakaskaas aan haysano waa ku ridi lahayn. sidaas oo kale oon kuu fududaynay kuu sahlinay anigana noo sahal ah sida waqtigeenana aan ku seefgaraysano ajarna aan ku qaadano liwajhillaahina aan u shaqeyno. yaa iska heli kara 3 shay oo hal daqiiqad gudihiisa aad ku samaysay qof nasiib leh ayaa helo. fikradaasna waxaan ugu soo ziyaadiyey wiilashaas yaryariiska maasha allah baaraka allahu fiihum allah yaxfadahum.
insha allah awlaada dhanna sidaas oo kale inuu fikiraan allah noo kaso aan usoo noqono sheekadeena mashwaarkaas inaa subaxii soo kacdid subaxii lasoo kacayo faa'iidooyin badanaa ku jirta oo la ogeynin xataa anaa waxaan dareemay waqti mutaakhir ah inkastoo muddo dheer aan sameynay laakiin xasayta raaxadii waqti mutaakhir awi fayaa naas inkastoo aniga waqti mutaakhir aan dareemay يعني waxaan jeclaystay inaan idinkan inii sheego يعني waxaan dareemay يعني waxaan dhan aan ii sheegayo waqti oo aad u gaaban ayaan dareemay farxadda sacaadada farajka degnaashada walwalka iyo khalqa dhankaa dhammaanay يعني qof dhulkan ku nool wadamadan gaalada ku nool waa adag tahay inuu walwal iyo walbahaar iyo kurba ka dhamaado dhinac walba hadduu ku fikiraa masal yariisaan soo qaadanaa gurigaa leh haddaa ka fikiris caruurtii maxay kuu noqon doonaa odaygii muxuu ku yani mashaakilka guriga ma yaro waa badan yahay marka mashwaarkan inuu qof malasba soo maro oo ka faa'iidaysto wallaahi bilaahi wax aad u wanaagsan waaye inaa ku noolaato noloshaada raaxo weligeed arkin yaa jamaaca raaxada ma aha money راحة فلوس معها راحة نفسية maskaxdaada kuu degan maankaaga kuu degan qalbigaaga kuu degan muruga kuu haynin walwala kuu haynin wallaahi inta laga helo waa in fara ku tiris ah subxaana watacaala awoodis waaye haddaa ilaahay isku xirto yaa dariiqada wanaagsan qaado dariiqada wanaagsan waxaan ka wadaa subaxi lasoo kacay labada rakac la dukanayo ilaahay ku abuurtay addoon inaad tahay xaqiijinaysid wejigaaga oo qiimaha badan dhulka aad dhigaysid ilaahay sujuudaysid kibirkaaga meesha ku baaba'aa bin aadanka wejigiisa ugu qiimo badan wejigaa intay dhigay dhulkaas ayaa dhigaysaa maxaad xaqiijinaysaa addoon ilaahay inaad tahay subxaan allah walxamdu lilah marka labadaas rakaca dukanaysaa ilaaha tuugay dhibaatooyinkaaga meesha lagaa hayso markaas hadday noqoto dhinaca ilmaha hadday noqoto dhinaca awlaada hadday noqoto dhinaca shaqada hadday noqoto nafsadaada inuu ilaahay kuu dejiyo kuu qaboojiyo waad ducaysanay ilaaha la hadlaysaa titkalam maca allah وإلهي وكو جبابا يا الله يا هلي كان خفقات ونصيب بدنا هلي كرت ولا لا يالو فائدوين كاس oo anaga aan aragnay ayaan jeclaystay aniga ahaan nafsaday shakhsiyan aan arkay aan jeclaystay inaan idinkana niisheego qof walba wuu ka faa'iideysan karaa qof walba nus saac ama hal saac wuu siin karaa waqtigiisa subaxii lasoo kacay intaa shaqada aadin hal saac ka hor salaatul fajr ama salaada nus saac 10 saac ka dhiman 10 daqiiqo hadaa ka dhiman tahay aad soo kacdid aad samaysid mashwaarkaas wuxuu ku geynaa xayaat saciid xayaat farxad leh xayaat oo aad weligaa arkaynin wax weligaad arkaynin ku noolaan jirin ayaad helaysaa mashwaarkaas aad u gaaban asxaabta waan jeclahay wax walba oo fiican oo qiimo leh oo wanaagsan inaan niisoo istaagan ii sheego